Markii ugu dambeeyay ayaa idinkaga haynaa qaybo ka mid ah gobolka Mudug oo la soo sheegayo kooxda Al-Shabaab inay isku urursanayaan ilaa dhowr deegaan oo ka mid ah gobolka. Xogtii ugu dambeysay ayaan rabaa inaan halkan kugula wadaago iyo sababaha keenay in kooxda Al-Shabaab ay deegaanadaasi culayska hadda saaraan ama ay isugu ururaan meelahaasi. iyadoo la ogsoon yahay dagaalo dhawaan ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud in khasaare badan lagu gaarsiiyay argagixisada Al-Shabaab. xogta ayaan rabaa inaan muuqaalkan kugula wadaago inta aan isaga oo dhammaystiran soo gudbin sii share garay muuqaalka oo la wadaag saaxiibada Facebook kugu helinaya halka YouTube aynu ku leenahay imaaw page-ka ama YouTube-ka channel-ka noo subscribe garay muuqaalkana like saar gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan xogaha iyo macluumaadyada aan halkan ku soo gudbino. وهجاج waxaan rabaa inaan ku bilaabo xogtii ugu dambeysay oo aynu ka helayno qaybo badan oo ka mid ah gobolka Mudug. kooxda Al-Shabaab saacadihii la soo dhaafay waxa ay abaabul ka wadaan meelo ka mid ah gobolka Mudug gaar ahaan aagga Caad iyo sidoo kale Dumaaye. wararka sida aynu ku helnay qaar ka mid ah dadka deegaanka in la wadaageen waxaa jirta in saacadihii la soo dhaafay halkaasi maleeshiyaadka ay isku urursanayeen isla markaana ay ka daabulayeen qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. waxa ay adeegsanayaan gaadiidka militarigu isticmaalo ee biishiyada loo yaqaano iyadoo la sheegay in koox ay dhulkaasi uga qaadayaan gobolka Galgaduud gaar ahaan aagga Ceelbuur, Galhareeri iyo Garabla ay ka qaadeen saacadihii la soo dhaafay maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxda arxan laawayaasha ah Al-Shabaab. horjoogayaasha maleeshiyaadka ayaa xogta sida aynu ku helnay maalmihii la soo dhaafay waxa shirar kala duwan ay uga socdeen Galhareeri iyo Ceelbuur waxaana la sheegay in go'aanadooda ay ka soo baxeen in culayska ay saaraan qaybo ka mid ah gobolka Mudug oo wali ay si fara ku tirisa ugu harsan yihiin. waxaa ogsoon tahay in maleeshiyaadka Al-Shabaab dhawaan qaybo ka mid ah gobolka Mudug dagaalo ka dhacay looga saaray kii ugu dambeeyay ama halkii ay xudunta ku lahaayeen oo Shabeelow laga saaray dhawaan. godadkii maleeshiyaadka ama dhufaysidii halkaasi ay ku lahaayeen waxaa hadda ku sugan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa xaq u dirarka ah ee deegaanka ee ah ciidamada isu tagay ee qabaa'ilada deegaanadaasi dega oo kooxda argagixisada Al-Shabaab ka xoreeyay meelahaasi. xogta sida aynu ku helayno waxa ay sheegaysaa in kooxda Al-Shabaab maadaama dhawaan lagu jabiyay khasaare abid aan soo marinna uu ku gaaray deegaanka Burjeed oo ka tirsan gobolka Galgaduud qiyaastii wax ka yar 40 kiiloomitirna dhanka waqooyi galbeed ka soo xiga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kooxda khasaare badan lagu gaarsiiyay. halkaasi waxa uga geeriyooday maleeshiyaad aad u fara badan oo 100 kor u dhaafaya iyo dhaawacyo aad u fara badan oo meel ay kala geeyaan ay la yihiin ilaa hadda sida xogta aynu ku helnay. sidoo kale tiro horjoogayaal ah ayaa dagaalkaasi Burjeed kaga dhintay kooxda Al-Shabaab oo ay damceen halkaasi inay ku soo qaadaan laguna jabiyay. maleeshiyaadka Al-Shabaab intaasi wixii ka dambeeyay waxa ay isugu weecdeen ama dib ay ugu laabteen qaybo ka mid ah gobolka Mudug. xogta sida aynu ku helnay dadka deegaankana in la wadaageen maleeshiyaadka ayaa si koox sidan horeba idinkugu soo sheegnay halkaasi ku tagaya. saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanadaasi oo ka howlgala gaar ahaan gobolka Mudug waxa ay inoo sheegeen in laga warhayo xogtaasi loona diyaar garoobay sidii looga hortagi lahaa meelaha farkutiriska ah ee gobolka kaga sugan yihiin dhawaan looga saari lahaa. ciidamadii ugu badnaa ayaa deegaanadaasi lagu diyaariyay oo isugu jira ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo isgarabsanaya kooxda Al-Shabaabna horey khasaare badan ugu gaarsiiyay deegaano iyo degmooyin fara badan oo ka mid ah gobolka Mudugna kala wareegay argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo hadda ciidamadu si toos ah ay ugu sugan yihiin nidaamka dawladnimadana la gaarsiiyay dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanadaasina ay si weyn u soo dhaweeyeen ciidamada deegaanadaasi gaaray oo kooxda argagixisada Al-Shabaab ee ka xoreeyay. waxyaabaha ka soo kordha halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa iyo hadba xogta sida ay noqoto iyo waxyaabaha dheeriga ah. muuqaalkan share garay la wadaag saaxiibada Facebook kugu helinaya waana ku mahadsantahay inaad halkan nala soo gaarto page-kan soo follow garay kana mid noqo saaxiibada ku xiran si wararkeenu ay kuu soo gaaraan barta YouTube-ka aynu ku leenahay muuqaalkana ay soo gelinayno soo subscribe garay kana mid noqo saaxiibada ku xiran si joogto aynu u soo gelino macluumaadka iyo xogihii ugu dambeeyay iyo dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya dalka Soomaaliya.